Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan u wanaagsan dhammaan walaaladii Soomaaliyeed ee channelka ku xiran. Halkaan naga daawanaysaan waa Amiin Media. Qofka aad daawanaysaan oo inala hadlayna waa Maxamed Amiin. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Run ahaantii aad ayaan usoo dhaweynayaa walaaladii Soomaaliyeed ee channelka ku cusub. Fadlan inta aan guda gelin muuqaalkan mawduuca aan doonayo inaan ka hadlo waxaan si ixtiraam iyo walaaltinimo iyo muslimnimo kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saartid. Haddii ay tahay marka kugu horeysay ee aad soo booqatay kanaalkeena, aad subscribe saartid, gambalkana furatid, like-tana aad saartid si muuqaalka uu gaaro dad badan, share-tana aad ku dadashid. Aad ayaa u mahadsan tahay. Kusoo dhawaaw muuqaal cusub. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalka kani wuxuu maanta daaran yahay su-aasha ah sidee waan ku bari karnaa caruurteena luqadooda hooyo ee af Soomaaliga. Run ahaantii mawduucan wuxuu quseeyaa su-aal iga soo gaartay waalid ama waalidiinta qayb ka mid ah oo ahayd sidee waan ku bari karnaa ama sidee ugu fudud ayaan ku bari karnaa caruurteena afka Soomaaliga. Waxaan ognahay dadkeena ku nool qurbaha wadan kasta ama Yurub ama America ama Australia meel kasta ay ahaataba, waxaan ognahay inaan dhib lagu qabo caruurta si luqadooda u baran lahaayeen, khaasatan kuwa ku dhashay ama ha ahaato kuwa ayuu yar la keenay oo luqadda wadankaasi baranayo meesha ay luqadoodii baran lahaayeen. Marka fikirka koowaad ama arrinta koowaad ee luqadda aad cunugaaga ku bari kartid waxaa weeyaan adiga ku hadal marka aad guriga joogtid luqadda af Soomaaliga. Ha ku hadlin wadankaad joogtid luqadiisa marka aad gurigiina joogtid. Reerka haddii badan yahay ha isku dayaan luqadda inay markay guriga joogaan luqadda Soomaaliga ku hadlaan oo luqadda kale oo wadankaad joogtid ama Ingiriis ha ahaato ama Faransiis ha ahaato ama Swedish ha ahaato ama Norwegian ha ahaato, waxay tahaba inaysan ku hadlin oo ay ku hadlaan luqadda af Soomaaliga. Waa fikir koowaad. Ma jirto aniga ku hadal anigana kuma hadlay, ma shaqeynayso, mana macquul ma aha cunugana dhahdid adiga af Soomaali ku hadal anigana luqadii wadanka aad joogay ku hadlaya ama luqadda baro, ma dhaceyso. Marka fadlan haddii aad doonayso cunugaaga inuu luqadda barto ama caruurtaada inay luqadda bartaan hooyo, guriga waa in looga hadlaa luqadii hooyo ee af Soomaaliga. Arrinka xigto ee labaad waxa weeyaan in caruurta run ahaantii la tuso, loo sheego muhiimadda ay leedahay luqadda hooyo. Waxaana muhiim ah markasto qofka cunuga ah waa cunug yar ma garanayo muhiimadda ay leedahay in loogu sheekeeyo, in la dhaho luqadan haddii aadan Soomaali ku hadlin Soomaalinimadaada shaki ayaa gelayso, Soomaali ma noqonaysid. yacni loo sheega faa'iida ayay leedahay. Marka ugu sheekay buugaag Soomaali u akhri. Midda saddexaad waxa weeyaan in caruurta loo kaxeeyo ama dibadda wadan Soomaaliyeed, Soomaaliya oo kale tusaale ahaan, ama wadan bay'adii ku jiraan ka baxsan oo luqadda Soomaaliga looga hadlo badan ah mar kasta si ay u soo bartaan caruurta luqadoodii ayna u kabacdo muhiimadda ay leedahay, faa'iida ay leedahay inuu qofka barto luqadiisa Soomaaliga, luqadiisa hooyo af Soomaaliga. Marka saddex shay ayaa maraya: wadanka u kaxeey, dalxiis u kaxeey, wadankooda soo tus, xoolihii iyo dhaqankii iyo afkiiga si fiican u soo bartaan. waa arrinka saddexaad ee aad ku bari kartid awlaadaada afkooda hooyo ee Soomaaliga. Midda afraad waxa weeyaan in caruurta lagu tartansiiyo oo weliba hadiyad lagu siiyo hadday bartaan ama hadday ku hadlaan luqadda afka Soomaaliga. Tusaale ahaan haddaad dhahdid maanta haddii aad af Soomaali igula hadashid oo waxaan ku weydiiyo aad Soomaali igu jawaabtid ama wax ay weydiisanayso Soomaali igu weydiisid, waxaan ku siinayaa lacag. Tusaale cunug Soomaali kugu dhahay
inaa wax hadiyad uu jecel yahay siisid, wuxuu jecel yahay inaa u gadid, ku dhiirigelisid, dhiirigelin u tahay, wuuna jeclaanaya markasta wuxuu isku dayaya marka inuu jeclaado. Midda afraad waxaa weeyaan cunuga hadduu wax qalad sheego in aan lagu qoslin oo la najibinin, oo aan hadduu qalad ku hadlo af Soomaali jajab uu ka hadlo aan la dhihin maxay tahay waxaa ku hadlaysid, aan lagu qoslin si uusan ugu sii cararin oo niyad jab ugu qaadin, kadibna luqadii uusan ka fulin ama uu ka cararin. Marka luqadda hooyo waa muhiim, una sheeg carruurtaada in luqadda ay tahay wax wanaagsan oo hadhowta anfici doonto. Midda kale oo muhiimadda luqadda u sheegi karto waxaa weeyaan haddii uu qofka cunuga luqadiisa hooyo u barto marka koowaad, waxaa u fududaanayso oo weliba si fiican u barto, waxaa u fududaanayso inuu barto luqadda waddanka uu joogo, ama ha ahaato Ingiriis noocay doonto ha ahaato. Waxaa u fududaanayso inuu si fiican u barto oo luqadiisa hooyo uu ku fasirto wuxuu garan waayo. Waayo waxaa ognahay luqadaha qalaad ee waddamada aan joogno inay adag yihiin, ereyo qaar uu u baahan yahay qofka inuu fasirto, inuu macnaheeda garto. Marka luqaddu waa muhiim, cunugana waa muhiim in la baro. Run ahaantii waxaan kaa codsanayaa haddii videogan uu kusoo gaaro ma aad aragtid, inaad sii shargelisid qof waalid ah ayaa laga yaabaa inuu anfaco. Shantan shay oo aan sheegay oo run ahaantii aan u arkay muhiim, su'aalihii la isoo weydiinay qayb ka mid ay ahaayeen sidee baan ku bari karnaa, ama fikir naga sii habka aan ku bari karno ugu sahlan carruurteena. Shantaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawata anigoo diiday inaan muuqaalka dheereeyo. Kan kula mid intaan ku kulmi doono waa walaalkii Maxamed Amiin oo ina leh muuqaalka sii sheergaleeya, muuqaalkana like saar si waalidiin badan ugu gaarto. aad ayaa ugu mahadsantihiin daawashadiina. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.